wasiir Caynaashe Cabdiraxmaan oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Khaatumo oo ku sugan wadanka Canada. wasiir Caynaashe wuxuu la soo xidhay xafiiska telefishinka SBS ee Boohotle. wasiirka waxaan ka wareysan doonaa xaaladdan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn mufaqiisa ku aadan. wasiir ku soo dhaw TV-ga SBS. ودوه صوره حسين حسن عبده adiga iyo telefishinka SBS aad baan idin salaamayaa. waayahay wasiir waxaan ku wada jirnaa wareysigana wasiir oo noo bilaabmaya. wasiir adigu maxaad ka leedahay xaaladdan kale waa ka warhaysaa markastana media waa daawataa xaaladdan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ka taagan wasiir mufaqiisa ku aadan. xaaladda mowqifkeedu waa cad yahay walidiidka dhulkan weerar ku soo qaaday ilaa 2007kiina dhulkan wuu ku soo socday iyo ka horba marka iyagii oo soo durkaya uu weeyay waxaana la gaaray waqtigii la iska celin lahaa arrinta taageera waa intaasu dhulka inay ka baxaan iyo talo loogu diray marar badan waanay ka soo jawaabi waayeen si nabadgelyo marka arrintii hadeeraad bay u cakiran tahay ka maarmi mayso in dagaal lagaga saaro diyaar baana loo yahay in laga saaro 100% ciidamada maamulka Puntland iyo dad badan oo meesha isku biirsaday ciidanka maamulka Khaatumo dhammaan meesha waa loo dhan yahay waxaa loogu midoobay in laga saaro ciidanka Soomaalidiidka ah ee doonaya gadarada ku socdo dhul aanay lahayn maalin bay inay magaalo qabsadaan marka arrintu intaa weeyay bulshada. wasiir su'aasha labaad ku weydiinay waxa weeye markasta waxaa ka dhaca gobolka Sool iyo sidoo kale deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn qalaasaya mudaharado lagu soo jeedo maamulka Soomaalidiidka ee jagaanta Hunnada Hargeysa dadka banaabaxaya wasiir maxaa u diraysaa? runtii banaabaxyada in la joogteeyo weeye waa ka xunnahay dad dhulkoodii qabiil kale ugu yimi cadaadiska ilaa xadka gaarsiisan oo ogolaaday may ahayn markii horeba in laga ogolaado haddana waqtigii waxa la gaaray banaanbax iyo dhirbaaxada la isugu dari lahaa wadankana laga saari lahaa waxaan ka xumahay dhibaatada joogtada ee lagu hayo shicibka reer Sool ee SSC maalin walba hablaha isku dhibanaya maalin walba xabsiyada laga buuxinayo maalin walba kuwa baabuurta la jiirsiinayo waa nasiib xumo laakiin waa arrin qoran weeye oo maamulka Soomaalidiidka ah ee dhigica Muuse Bixi uu madaxda u yahay xisaab loo hayo oo lagu xisaabtami doono weeye arrin ma aha maanta ku ekaan doonta waxa taana uu xil ka saaran yahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed dowladda federaalka ee Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed ee midnimada jecel dadka gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waa inay dagaal isaga kiciyaan dhulkoodana ka saaraan Soomaalidiidka waxaa soo gardaraa u geysanaya ana lagu eegan maantida banaanbaxyadana xaq bay u leeyihiin inay sameeyaan inkastoo cidda lagu banaanbaxayaa bay qabiil kale tahay oo in gacan la isaga celiyay tahay. waayahay wasiir Caynaashe Cabdiraxmaan ciidamada Puntland ku jira jiida hore ee deegaanka Tuqarraq iyo sidoo kale ciidamada maamulka Puntland maxaad igu diraysaa ciidamada ciidana ku sugan jiida hore ee Tuqarraq? Soomaalidiidka aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa ku dagaalama waa dhulkiini insha Allah ta'ala ilaa labada gaatamiya Caynaba marka la gaarana markaas aynu xisaabtami doonaa insha Allah ta'ala maamuladeena sidaynu u ballaarsan lahayn qayb haddaan doono uga dhigan lahayn laakiin ku dagaalama geeridiinu xaq weeye in alla intii muslim la hebin kare waa la hebiyey hadday diideen waqtigii waxa la soo gaaray sida tooska la isaga celinayay marka aad baan ciidamada iyo maamulkooda ugu hambalyeynaya. waayo wasiir saan ku wahaynaba magaalada Laascaanood ee maalmihii ugu dambeeyay waxa lagu soo qulquliyay ciidan dhaho ARC oo shacabka Laascaanood dib weyn ku haya ciidamada maalin kasta ku soo qulqulaya ee Laascaanood maamulka Soomaalidiidka ay ku wadaan gobolka Sool maxaad u diraysaa Muuse Bixi? soo haysato dowlad matiid warigaana ma noqonaysid ciidankan qabyaalada ku dhisan aad u soo dirayso shicibka ee aad leedahay habeenkii guryahooda ugu dhaca waa qalad aad u weyn dhinaca bini'aadanimada dhinac walba marka laga eego jooji ciidankaaga kala bax dhulka maalmaha soo socda waxaad heli doontaa jawaab aanad malaysanayn durba kibirkaaga waa jabay oo adiga walaalayaal
nabad baan doonayaa adigoo weligaa nabad lagaa maqal ka jooji ciidamada haddaad isleedahay maalmo yar baa kuu haraya dadkan siixa suuqa waxaa doonta sameeye laakiin dhirbaaxo aanad malaysan karin baa kugu soo maqan ka jooji ciidamada shicibka dumarka iyo carruurta aad aqalada ugu dhacaysaan habeenkii ka joojiya xaq maaha sax maaha waa qalad waana lagaa soo gaarayaa gacan birana waa lagugu qabanaya haddii la yidhaaho waayo wasiir gabagabadii wasiir caynaashe maxay kusoo gabagabeynaysaa oo aad baa ku diraysaa xaala dadka ku sugan gobolada sool sanaag iyo cayn walaalahayo waxaan ku leeyahay dhulkani somaliland lama yidhaaho soomaaliyana kama go walaalayaalow walaaltinimadeenu yaanay xumaane ciidamadiina ku adkeeyay maamulkiina dhulkan inay ka baxaan sidoo kale dowladda federaalka madaxweyne farmaajona waxaan ku leeyahay madaxweyne halkii lagaa filayay kamaadan soo bixin inaad tukarag nabad ha laga dagaal wiil baa ku dhimanayaa tidhaaho may ahayne waxayd inaad tidhaaho somaliland dhulka ha ka baxdo halkanka wada ilaa dhulka laga saarayo gabagabadii ku jirnaa waraysigeena wasiir caynaashe ugu dambeyntii sidaan ka warhaynaba waxaa la sheegaya in madaxweynaha maamulka jubbaland uu isna keenay ciidan balmaqliya garowe madaxweynaha jubbaland isaga maxaa u diraysaa caynaashe والله ummadda Soomaaliyeed oo dhan baan ugu hambalyeeynaa madaxweynaha Jubbaland ee ummaddaas ka mid yahay oo dhan xaq waa loogu leeyahay maadaama ay dowladda federaalkii noqotay dowlad gaabis ah oo xamar ka dhamaan weyday maadaama ay noqotay uu maatay madaxweyne Axmed Maxamed Islaan maamul goboleedyada waddanka ka jira ee kalena siyaasaan ka filayaa hadii ay ka raallinoodo si midnimada loo ilaaliyo kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Khaatumo Caynaashe Cabdiraxmaan oo ku sugan waddanka Canada oo waraysi gaar ah siinayay telefishinka SBS aadna wasiirka uga badalina waraysiga Caynaashe